waxaan doonayaa inaan xusuusiyo nin inagu yara afdheer oo inagu xaasida oo ka xun badbaadada aynu badbaadnay ka xun dadaalka aynu samaynay waa nin la yidhaa xasan sheekh oo gebigiisaba hool intan la eg aan buuxin karaynin aan isku ilaalin karaynin aan xukumin ayaa haddana sheegta inuu Somaliland na ay tahay gobol uu isagu leeyahay waa eertaadii baabaad haynine tan maxaa ku keenay tan waxba kuma ahe tan mana lihid kumana taqaan waxna uma qabatid waxna kama qaban kartid umana dhowid mar baad ka shaqaysan jirtay shaqaale noo ahayd mar baanu adiga mushahar ku siin jirnay magacii yaraaye lagu faray ayaad madaxweyne isku mooday ma mushaharkii yaraan ku siin jirnay maciishka iyagiiba ayaa calooshada saa ugu khameeray miyaad ilowday sidaan kuu soo dhaweynay miyaad ilowday say Somaliland kaaga duwan tahay Soomaaliya uga duwan tahay miyaanad goobjoog ka ahayn saanu doorashooyinka iyaga u gallo xasan sheekhow waxbaad baratay oo geography waad baratay oo history waad baratay xiisadaa miyaad ka maqnayd maalintii la baranayay the Horn of Africa geography-geeda miyaad ka maqnayd markii la gubarayay aad ardayga ahayd ee lagu lahaa waxaa jira French Somaliland British Somaliland adna aad ahayd Italian Somalia aad ahayd xiisadaa miyaad ka maqnayd xiisadii lagu barayay in dalkii ugu horeeyay ee Soomaali degto ee xornimadiisa qaata inuu ahaa British Somaliland Protectorate 26 June xageed joogtay markaa Soomaaliya xageed joogtay markaa miyaad ilowday inay ahayd Italian Somalia 26 June Soomaaliya inay ahayd miyaad ilowday mise xiisadaa waad ku dhacday haddaba xiisadihii aad ku dhacday ee aanad sax u xusuusanin adduunka ha ka dhaadhicinin ilaa adduunku waxbuu akhriyaaye sidaada jaahil uma wada ahae waxbuu fahmaaye wuu akhrisanayaa wuu og yahay diiwaankay ku jirtaa inay Somaliland 26kii xor ahayd adna aad mustacmarad ahayd markaas sideed ku yeelatay haddaba Somaliland ma isweydiisay laba saddex sidaada jaahiliina waad ka dhaadhicin laakiinse adduunku wuu og yahay wuu kugu qoslaa markaad tiraahdo gobol anigu aan leeyahay oo Somaliland la yidhaa ayaa Ethiopia la siiyey ama dekad laga siiyey waad taada baraad xukumine ta Soomaaliya baraad xukumine hobyo baraad xukumine ta adigu ku dhalatay hobyo magaalada hobyo ma xukuntaa ma gaadhi kartaa ta adeero xishoodo xasidnimadu halkaa kula gaadhinay xishoodo ilaahay ka baq oo beentan adduunka ka daa adigu bay kugu soo noqotay iminka oo adaa imika lagu qoslaaye anana waan ku damqanaynaa xishoodkaas abaan ku diidanaye ka daabaan ku leenahay xasanow sidaa waxay Somaliland ku badin jirtay markaad shaqaale ka ahayd ee mushaharka iyagaan ku siin jirnay ay ku badin jirtay markaasay ku sharaf badnayd laba daloo walaala ah oo jaara oo wada shaqaysan kara ma tiigsatay taasaa ku dhaantay taasaa ku sharaf dhaanta taasaa ku xalaaloobi karta taasaa dadkan kugu qoslaya ka bayranaysa marka waxaan leeyahay xasanow intaasoo arday ma dhex fadhiisan karta adigu madaxweynaha waa kaalka maanta fadhiye ku dhex jiray waa ka magaalada iska wareegay ma samayn kartaa de waa maya de adduunku sax soo og yahay ka daa xasanow sidaa iimaanka isku jallis Somaliland ma gaadhi kartid Somaliland waa dal ka duwan kaaga ka duwan waa Somaliland tan kuma taqaan Somaliland kuma rabto Somaliland idin ma rabto de ka quusta marka waxaan leeyahay shaqaalahan iyo dadka nimanka halkan joogo waxyaabaha aad ku guulaysateen dad baa ka xun ilaahay bay taa la hortagayaan xasidkii Somaliland waa ka iyaga dhaawacay ee ay salka dhigi la yihiin damiirkiina ku shaqeeya reer Somaliland ay midnimadiina ilaashada reer Somaliland ay
walaalnimadiina xoojiya reer Somalilanday isjeclaada reer Somalilanday cadowga iyo idinku shaqaysanin xasidka idinku ah Somalilanday mustaqbalkaaga wuu dhalaalaya ha iska maaraynin yaan ceel lagaaga ridin yaan xasid lagaaga duminin marka waxaan leeyahay soo dhawaada hooyo ku soo dhawaada bahda caafimaadka ku soo dhawaada hooyo mustaqbal wanaagsan baan idin rajaynayaa wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena